kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada warka galab ee warbaahinta Xawaarin News qodobada xiisaha leh kugu haynana waxaa kamid ah maxay tahay mudnaanta gaarka ah ee qorqoor u dhexdhexaadinayo farmaajo iyo Rooble maxaa looga hadlayaa kulankii xalay dhex maray Fahad Yaasiin Xaaji Daahir iyo Qorqoor farmaajo oo ku qasbana inuu dib u soo ceshto maamulka doorashada Soomaaliya geerida majaajilaystiga caanka ah Ajakis oo si weyn looga dareemay Soomaaliya iyo madaxda dawladda federaalka Soomaaliya oo ka tacsiyay dawladda Shiinaha oo markab dagaal iyo ciidamo u soo dirtay biyaha Soomaaliya wararkan iyo kuwa kale xiiso badan ayaa daawadayaal kugu soo gudbin doona warka galab ee warbaahinta Xawaarin News fadlan daawada haddii ay tahay markii kugu horeysay oo soo booqato page-ka iyo channel-ka warbaahinta Xawaarin News like iyo subscribe inoo saar si aad ula socotaan wararka iyo barnaamijyada xiisaha leh halkan aan soo gelina waa galabnimo Isniina taariikhdu ay ku beegan tahay 27 bisha 9 sanada 2020 madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qorqoor ayaa la sheegayaa in arrimo muhiim ah ay ugu jiraan dhexdhexaadinta farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo khilaafkooda xilligan meel baan oo marayo isla markaana la taagan yahay in uusan wax laga qaban karin isla markaana laga qustay sida laga soo xigtay ila ku agdhow xafiiska madaxweyne Qorqoor waxaa la sheegay in Qorqoor uu doonayo in ay muhiimad weyn ugu jirto in ay heshiyaan Qorqoor waa farmaajo iyo Maxamed Xuseen Rooble waxaana la sheegayaa in marba marka ka dambayso uu Qorqoor u xusul duubaya sidii labadan dhinac isugu keeni lahaa maalmihii la soo dhaafay ayaa waxaa soo ifbaxaya in uu burburay isla markaana fashil uu ku soo dhamaadeen wada hadaladii u dhaxeeyay labada dhinac dad badan ayaa waxa is weydiinayaan mudnaanta gaarka ah madaxweyne Qorqoor ku mutaystaya in uu dhexdhexaadiyo labada mas'uul oo sheegaya in marar badan uu ku guul dareystay in wada hadaladooda ay miro dhalaan ama heshiis laga gaaro madaxweynayaasha maamulada Puntland, Jubbaland iyo Hirshabelle ayaa wali wax aan kaalin ah aan ka qaadan dhexdhexaadinta ama wada hadalada lagu dhexdhexaadinayo farmaajo iyo Rooble muddo dheer waxaa la ogaa in madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni iyo madaxweyne Axmed Madoobe iyo golaha midowga musharaxiintu ay ka soo horjeesteen siyaasadda farmaajo halka madaxweyne Qorqoor Laftagreen iyo Cali Guudlaawe ay taageersan yihiin siyaasadda farmaajo iyo Fahad madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni Axmed Madoobe iyo Cali Guudlaawe ayaa waxa ay ka gaabsadeen in ay dhexdhexaadiyaan farmaajo iyo Rooble si gaar ah madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni iyo Axmed Madoobe waxa ay cadeeyeen mowqifkooda ku aadan in farmaajo aysan wax garab ah ku sii doonin khilaafka kala dhaxeeya ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble waxa ay sheegeen in farmaajo uu yahay danaysta cad waxa ayna ku eedeeyeen in uu doonayo in doorashada Soomaaliya uu meel uga dhaco isla markaana dib u dhac uu ku yimaado si gaar ah madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni oo khilaaf adag uu kala dhaxeeyo farmaajo oo waxa uu sheegay in farmaajo uu doonayo in doorashada dalka uu afduubto isla markaana waxa uu ku eedeeyay in farmaajo danaha uu wato cid ka yeeli karta aysan jirin madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa waxa uu waqti hore ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ugu baaqay in uu iska fogeeyo farmaajo isla markaana hadii uu u nuglaado farmaajo waxa uu doona uu rabo inuu ka samaysto xafiiska ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble balse Rooble oo talada Deni qaatay ayaa waxa uu ka dhaga adeegay isla markaana dhagaha ka furaystay tanaasul la'aanta kaga imaanaysa ama cadaadiska uu ka wajahayo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha madaxweyneedkiisu dhamaaday sidoo kale waxaa la sheegayaa in madaxweyne Axmed Cabdi Kaariyo Qorqoor qudhiisu uu ku fashilmay sidii labadan dhinac isugu keeni lahaa isla markaana mar qura heshiis loo gaari lahaa sidoo kale kiiska Igraan Tahliil Farax oo noqday mid hadal hayn badan dhaliyay ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay khilaafka ka taagan filla Soomaaliya waana arinta ugu weyn ee labada dhinac isku fahmi laayihiin hogaamiyaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qorqoor oo siyaasad ahaan bilihii la soo dhaafay looga kacsanaa deegaanada maamulka Galmudug ayaa haatan la sheegayaa in siyaasadiisi waaye aragnimada ku saleysnaan jirtay ay god ku sii dhacayso waxaana deegaano badan oo maamulka Galmudug ka tirsan ku daadanaya dhiigga shacabka Soomaaliyeed oo halkaasi dhibaatooyin ku haystaan sidoo kale Qorqoor ayaa waxa uu wajahaya caqabad xooggan oo xilligan la soo gudboonaatay taasi oo ah in ahlu sunna wal jameeca
ay kaabiga ku hayso deegaanada maamulka Galmudug isla markaana laga yaabo in dagaalo u dhaxeeya maamulka Galmudug iyo ururka Ahlus Sunnah wal Jamaaca inay ka dhacaan deegaano ka tirsan maamulka Galmudug. wali waxaad nagala socotaan warbaahinta Xog Waran News. madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qorqoor ayaa xalay waxa uu kulan la yeeshay taliyaha dhanka amniga qaranka Soomaaliya Fahad Yaasiin Xaaji Daahir sida ilo waraadyo lagu kalsoon yahay u sheegeen warbaahinta Xog Waran News. kulankan ayaa labada dhinac waa Qorqoor iyo Fahad Yaasiin waxa ay uga arrinsadeen khilaafka u dhaxeeya Farmaajo iyo Rooble. sidoo kale waxaa la sheegay in looga hadlay arrimo la xiriira ammaanka dalka. sidoo kale Qorqoor ayaa waxa uu u soo jeediyay Fahad Yaasiin in uu la qudhiisu uu indha xaaladda ka dhex taagan ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha. waxaa la sheegay in madaxweyne Qorqoor uu Fahad Yaasiin ka dalbaday in xilligaani labadooda oo kaliya ay ku noqonayaan wada dhexdhexaadinta Farmaajo iyo Rooble, waxaana la ogeyn halka ay ku dambeyn doonaan dhinacyada ishaya xaaladooda siyaasadeed ee xilligaani marba marka ka dambeysa ka sii daraysa. arrinta la yaab kale ayaa ah in Qorqoor iyo Fahad Yaasiin oo ku dhinaca Farmaajo sida la ogyahay in ay ka shiraan sidii xaaladda siyaasadeed ee dalka loo dejin lahaa isla markaana khilaafka loo dhammayn lahaa, balse siyaasiyiinta mucaaradka ah ayaa arrintaani waxa ay u arkaan xagaldaacin siyaasadeed oo uu wato madaxweynaha madaxweyneedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waxaanan suurtagal ahayn xilligaani in Qorqoor iyo Fahad ay ku guuleystaan xal u helidda khilaafka siyaasadeed ee ka taagan filla Soomaaliya. wali waxaad nagala socotaan warbaahinta Xog Waran News. madaxweynaha madaxweyneedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu xilligaani la sheegay in uu ku qasban yahay soo celinta maamulka doorashada Soomaaliya oo horey uu ugu wareejiyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. inkastoo kiiska Igraan Tahliil Farax uu si weyn daaha uga qaadaya ismaandhaafka Farmaajo iyo Rooble, haddana waxaa la fahansan yahay in uusan labada nin isku dhacsanayn oo muddo dhowr bil ah ay ugu weyn tahay kiiska Igraan Tahliil Farax isku dhacooda ka taagan filla Soomaaliya. isla markaana waxa ay sheegeen in haatan khilaafku uu sameeyay arrimaha doorashada Soomaaliya. Farmaajo ayaana waxa uu xilligaani la sheegay in uu damacsan yahay in maamulka doorashada uu dib uga soo ceshto ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. madaxweyne Farmaajo ayaa la diray ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre isaga oo ka careysan damiciisa kursi doonka ah. waxa uuna 2 bilood raadinayay qof uu kursigaani ku haysto isla markaana amaradiisa gaarka u hoggaansama, balse Rooble oo markii dambe uu gacanta ku soo dhigay ayaa uga baxay heshiiskii ay wada gaareen. waxaana Rooble oo loo maleynayay miskiin siyaasadeed uu noqday nin aad u halis badan oo Farmaajo ku noqday laf dhuun gashay. waxaana ilaa iyo haatan Farmaajo uu ka careysan yahay sida oo ula dhaqmay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ah Maxamed Xuseen Rooble oo uu sheegay in uu uga baxay ballamihii horey ay u wada galeen. inkastoo sana Rooble ka bixin ballantii musharaxiinta, haddana waxaa si weyn isugu soo aaday jadwalkii uu Farmaajo qorshaystay in dib ay ugu dhacdo doorashada Soomaaliya iyo khilaafka haatan ka taagan filla Soomaaliya. Rooble uma muuqana in waqti dheer uu rabo in uu Farmaajo ka amar qaato, balse xilligaani ayaa xaaladda Rooble waxa ay noqotay mid halis ku jirta dhanka siyaasadda kadib markii uu Farmaajo gacanta ka taagay arrimaha halista ah ee marba marka ka dambeysa kaga imaanaya dhankiisa. Farmaajo oo la sheego in uu doonayo in uu afduub siyaasadeed